aan soo dhawaada dhamaantiin mudaniye marweyne mar kale waxaad leeyahay waxaan doonayaa marka wadanka la idinku yiraahdo wax soo saar baa laga sameeyaa ama warshadaha haato ama wixii doonaha ahaadee ina hadiya goor aynu ka midaysnaano marka dhamaantiin waan islaamiya reer Toronto waan islaamiya inta maxay heeday barafka soo martayna waan idin mahad celinayaa dadka soo qaban qaabiyo waan mahad celinayaa wajiyo badan oo halkan aan igu cusbeen baa jooga وإذن الله هذي دونا وحبيدين شيك دوران إن شاء الله بإذن الله كريم مركل بعد نسكوس ونقولنا وحنفلا يا إذن كأو شير كله ورشدن أفريقيا إنكوا ميل سو كوريسا وميل دقالوه سو كبعيو إن سوماليلاند وفرونتير ماركتس وحنا يرهضوا أو رونهانتي قفكي كل يرهنا يا investment أو كله return كيس جورول بيني كبادنا يسو حاجة ويسترنكا 1975 دولتي كانكو waxay dhisatay warshadii baastada magaca baastadii ku caan baxday laakiin waxay warshadii daqiiqdii baastada marka la eego warshadii sonkorta Jowhar iyo tii sibirka berbera saddexdaasi lacagta ugu fiican dawladda xog soo gali jiray tii daqiiqda marka su'aashii ninka odaygu hayay ee ahayd xagee laga dhigayaa warshada iyo waxa jira dad kale oo warshad inay ka sameeyaan berbera raba imika berbera warshad baa laga sameeyay 10 sano ugu dambeysay warshad daqiiqa wala hadal hayun laakiin feasibility study markaanu eegnay Somaliland oo kaliya waxay u baahan tahay 9 warshadood oo tan aan wadno la mid ah oo 200 oo tan maalintii soo saaraysa ama cajiiminaysa 200 oo tan oo qamadiya marka arrin waxa jira la yiraahdo wadankii hebel bay u xiran tahay iyo ma fahantay waxyaabo caynkaasa food security waxa ugu wanaagsan in lagu tartamo weeyaan Turkiga waxay leedahay 750 warshadood bay leedahay ya waxay sameysay intay daqiiqdii badisay iyo adduunka la dagaalantay imika 32% of the world trade Turkiga baa leh qamadin hadday noqoto daqiiqda xagee ku gaadhay may oranhana loo xidhayo qolaa soo socota waxa la yiri sameeya sida dhaqsaha badan loogu sameeya aan waxaan rajeynayaa 100 sano ka bacdi inay taas oo kala noqono oo adduunyada ma fahanti wax u dhoofin karno intaas xagee laga sameynayaa saddex wajahadood ama saddex qaybood weeyaan mashruucu mid in laga faa'iideysto dekada berbera oo caalami ah oo imika $400 milyan lagu bixinayo oo wishash cajaayib loo sameyn doono oo kaydka haamaha qamadiga sareenka dibadda aanu ka keenina Kazakhstan iyo Ukraine halka lagu kaydin doono laakiin industrial hygiene span leena hiyo wire la yiraahdo oo nin Irish markaan isku noqonay la tashanayna brand flour mills oo ku taala duleedka magaalada oo iyaduna technical advisor ka yaga ah wuxuu nagu yiri war berbera waan arkayaa maabka annagu halkan joognaa humidity dhibaato naga haysa oo aanu daaniyo iyo baraay la dagaalanaa berbera kama dhigi kartaan buu nagu yiri ma fahantay warshad waliba daqiiq soo saaraysa warshad kale waa laga sameyn karaa laakiin mid daqiiq soo saaraysa oo way siyuucaysa oo fungus bay yeelanaysa oo waxyaabo kale ma fahantay oo kale marka berbera horta warshad lagama dhigi karo xeebta laakiin waxa la sameyn karaa kale meel ay abdaal baa jirta oo ilaa 60 kilomitir u jirta oo hawadu isku bedesho ya oo xaggan marood jeex soo xigta marka warshadu waa marood jeex kaydku waa saaxil ama berbera beeraha la maalgelinayana waa awdal iyo gabilay oo runtii carro wanaagsan leh pH-keeda ay nagu yar sareeyaa but it's a very good location oo horena looga sameeyay nin la yiraahdo ina sabriye oo beeraley ama dhow email nooga soo diray oo inta beerood u leeyahay qadinka imka uu soo saaro lafteeda laakiin wax maal galiyo uu leeyahay ya marka runaha warshada soo saara ee wax ku booriya taayo sameyn doonta in ay shaqo abuur samayso cuntadii dibadda aad ka keensanayso ku jabta way marka cuntadaadii aad soo saaratid way ka jabantay tii aad dibadda ka keenaysay taasina waxay ku keenaysaa qolada kale xitaa wax keenaysa dibadda inay qiimo ka jaban ku keeni karaan si ay tan u compete karayaan taasina waxay noo saalaysaa marka inaynu gaajadan iyo dhibaatada in haysta aynu ka baxno waxaan isku dilinoo dhanba bini'aadamka oo dhan wuxuu dagaalay waa dhaqaale Mareykanku Shiinaha Ruush waxa ku dagaalamayaan waa dhaqaalaha cidda gacanta ku qabanaysa ay hububkani waxaan u sameeysanayaan
haddii aynan inagu markaa dhexdeena wax ka soo saaran waxba noqon mayso soo kacaya cunaha markaa la isku dhegaya that's inflation ilaa imikana qof dalkii joogo oo inflation define garaya maba jiraba laakiin maxaan uga jeedaa taasi warshaddan waxay ka mid noqon doontaa dawada mushkiladaasi not only waxayna siin doontaa calaf iyo waxaan cunno hard currency baa laga farsanaya lagu keenay daqiiqda by the way daqiiq maxaa u taqaanaa daqiiq waa farbeed af Soomaali maxaa lagu yiraahdaa bur waa fahamariye maxaa lagu yiraahdaa bur waa kidaar in which language bur waa kidaar laakiin daqiiqdu muxuu ahaa budo